السلام عليكم أردنا الصوماليات مالك استوى جوكتان مقال كانوا حنقول هذلنا ديفي لوتري من وقت نسيب كأمريكان كا جارهان مقال كحنقول هذلنا فيسا بولتن هالك أتكو جان كرتت حلقة أتبلنت الليلة عمل ترفيو قد جلست سيدا لقنا هاي ديفي لوتري مركو روالا حريستا من أكتوبر من نوفمبر نتيجة أمريكا تيجي نروح الليلة بشا ماي نتيجة إيميل صعوبة درو ويب سايت أيا لقى فيريا أو ويب سايت كي مركورة كحريستي وحا كوسو دعيسة مركا كوباد ورقد لي هذا فاست نوتيفيكيشن لتر ورقد كوباد واي أو لو وهم بلينا لو شيء هنا تقولي ستي ورقد سبحان لي هذا فاست نوتيفيكيشن لتر المركا ورقد سيشد طبعا واحد جلسة بروسس كحيجي أو DS264 ما يتحرينيسا DS264 كاجا مركا حريست كده وحكو حاجة إنها تهشيد ورقد اللي هذا second notification letter أو رقد اللبات اللي هو شيء جايو هل قرط على الانترفيو اللي له حلقة بلانتا اللي له طبعا هالكي لقوا هذا تاس وحلقوا هذا ما اللي هذا فيسا بولتين كا waxaad ka gali kartaa mobilkaaga ka isticmaali kartaa computerkaaga ka isticmaalaysaa waxaad galaysaa Google Chrome-kaad galaysaa dabcan Google aad tagaysaa aniga sidaad arkaysaan Google-kii ayaan taaganahay then waxaad qoraysaa visa bulletin bil kasta ayaa la soo daayaa visa bulletin markaad aad qortid sida u qortid dabcan waxaad arkaysaa bilihii January, February, March, for example, October. عندنا هذا. عندنا visa bulletin October 2022. Okay. أنت ربك ده هنا. وحاسوب بحيث ويب سايت كي لقى جلاي visa bulletin كوا travel.state.gov. وكان أوكر رأيه تجدون تا. الويب سايت كأوصل رأيه. هذا كون مقدر أي تجدون تا طبعا فيسا بوليتيك بركة كشيد أو ويب سايت وفورمو وحان أركض دونا قيب تا أو مهم سن كأنكو أغاني إنه حلقة بلانتا علينا سيدا تركي سن ويسو كعيا كمبيوتر كي وصو دارميا أو الويب سايت كي عشقينيا وقام waxay ku xiran tahay internetka mar walba aad haysatid hadii dabcan internetkaaga uu fudud yahay website-ka hore ayuu kaaga soo furmaya hadii dabcan internetka hadda ariga isticmaalay oo kale uu yahayna waxa laga yaabaa inuu ka soo yara daaho visa bulletin October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August ila September ugu dambeys intaas ayaa la soo daayaa visa bulletin-ka waxaan loo soo daayaa bil ayaa loo soo daayaa number ayaa arki doonaa hadduu la yiraahdo numberkaas haddii numberkaaga uu ka hooseeyo waad is diyaarinaysaa haddii numberka meesha ku qoran numberkaaga uu ka sarreeyana waad sugaysaa sidaad arkaysaan website-ka ayaa soo kacay halkan July upcoming August هذا بيش أغسطس أيها صوص عطو طبعا وفيسا بولتين كذي أغسطس هذه أنا كل أفطو أغسطس بيش أغسطس يا بلاله هوس أسعى قرار كان بدن هوس أسعى وحتى جيسا هل كان waxaad tagi doontaa okay halkan qaybtan hoose qaybtan aad tagaysaa qaybtan maxaa waaye dal kasta August mar hadda current hadaa maqashid current macnaheedu waxaa waaye qof walba wuxuu marayaa hadda August marayaa current baad aragtid okay aan July dhahno tusaale July aan dhahno bishii July yaa balasanaa oo interview u balasanaa hoos u soco
hoos u soco hoos u soco soco meesha numberskan arki doonaa halkan markaa aragtid maxaa waaye Africa oo dhan waa current marka laga reebo Masar oo numberkan 13,000 uu marayo waxaa fiirinaysaa numberkaaga inta lagu soo qoraa mar walba numberka inta lagu soo qoraa numberada haddii numberkaaga uu 13,000 uu dhaafsiisan yahay 13,100 uu yahay waa sugaysaa bisha dambe ayaa laga yaabaa inaad gashay haddii lambarkan 13,000 uu ka yar yahay balantaadii mar hore lagu soo diray website-kii warqadda congratulation-ka lagu soo dhigay ka raadi hadda for example July waxaan fiirinaynaa meel number ku qorayaan fiirinaynaa July waxaan fiirinaynaa maxaa bishii ka horeysa bishii May sanadkan waa la dadejiyay oo waxa waaye waxaad arkaysaa in dadka dhan ay August ugu dambaysa oo September aan la geli doonin waxba kan soo marka fiiri meesha ugu dambaysa numberada ku qorayaan raadinina halkan fiiri tusaalahan Africa fiiri hada Africa uma fiirsanaysaa Africa inta badan dalalka qaar accepted gu leeyahay sida hadda halkan Masar Iran iyo Nepal Africa 63,800 ilaa wix ka hooseeyo waa soo wada galeen waaye lambarkaaga 63,800 ma ka sareeyaa hadduu ka sareeyo waa sugay wait hadduu ka hooseeyo warqadda balanta waa lagu soo diray fiiri halkaas ka fiiri Africa halkaa fiiri okay good haddii aan fiirino bal bishan ka horeysay May Soomaan maxaa ka horeeyay April aan fiirino marka April visa bulletin waxaa raacinaysaa bisha iyo sanadka kaliya bisha iyo sanadka kaliya kan ugu koreeyaad markasta ku dhufanaysaa visa bulletin good hoos u soco meesha numberka ku qoran yahay raadi halkan maxaa ku qoran Africa 50,000 hadduu ka sareeyo case-kaaga uu ka sareeyo waa sugaysaa haddii case-kaaga uu ka hooseeyo 50,000 waa la soo diray warqadii waa lagu soo diray second notification letterka eeg website-kii warqadda aad ku guuleysatay lagu soo dhigay warqadii DS waxaa la yiraahdaa DV lottery waa arki doonaa DV selective program selective arkayna hadda aan fiirina bil October oo sanadkii hore October oo kale aan fiirina October bishii October aan fiirina visa bulletin mar walba ka warbarinaysa October 2021 aan dhahno 2021 okay visa bulletin October 2021 midka ugu koreeyay bal fiiri October dadka la soo daynaayay sanadka 2021 hoos u soco halka numberada ku qoran tahay fiiri 2,675 it means maxaa waaye lambarkaaga fiirina marka case numberkaaga 2,675 ma ka hooseeya hadduu ka hooseeyo waa lagu soo diray warqadii balanta waa lagu soo diray soo qaado soo daabaco kadibna isdiyaari xilliga balanta warqadda lagu soo qoraya time warqadda lagu soo qoraya haddii uu ka sareeyana sug hadduu numberkaaga dhow yahay marka 3,000 meelaas uu yahay bisha kale waa galaysaa halkaana ka fiirin doontaa kala socon doontaa good hadda October 2022 danda ka waran October 2022 ma jiro October 22 lama soo dayno wali October 2022 wali lama soo dayno current visa bulletin upcoming July August la ku muuqanayso lama gaarin oo goorma la soo daynaya October bisha dabcan October bisha ka horeysa September ayaad fiirin doontaa hadduu la yiraahdo then waad ogaan doontaa xilliga
balanta aad leedahay September ayaad ogaan doontaa insha Allah. halkaa marka waxaad ka fahantay visa bulletin-ka inuu kuu sheegayo xilliga balanta aad leedahay. yaa kuu sheegaya visa bulletin ayaa kuu sheegaya. marka aad aragtid numberkaaga inuu current yahay, it means marka aad aragtid numberkaaga in bishan uu yahay, kadib waxaad tagaysaa DV selectee DV program .state.gov waa kana DV program selecteesna waa la dhahaa DV program .state.gov. okay, status check DV program .state.gov aa la dhahaa DV program .state.gov DV program .state.gov DV program, then check status aa leedahay, check status aa dhihi doontaa, then continue ayaa dhihi doontaa, continue ayaa dhihi doontaa, waxaad halkan gelin doontaa numberkaaga, awoogaad gelinaysaa, sanadka aad dhalatay, number baa halkan kugu soo qormi doona waad gelin doontaa, numberkaas markaa gelisa submit aad dhihi doontaa, warqadaadii second notification letter ayaad heli doontaa. fadlan muuqaalka share gareeya, like ha badato. ujeedada aan idinkugu soo bandhigay ma ahayn in dadka aan ku dhiirigelinayo in ay maaragtay Mareykanka aadaan, keliya waa waxbarasho, dadka inay bartaan oo ay fahmaan processkii iyo nidaamkii inay fahmaan. ujeedadeeda intaasay ahayd. muuqaalkan fadlan gaarsiiya dadka xarayn doona sanadaha soo socdo si ay usii bartaan, iyo 215 qof ee sanadkan guuleystayaasha ah. aad iyo aad u mahadsantihiin. Somteach waa a multi-purpose organization ama institution, inta badan waa learning waaye waxbarasho. okay, you learn from us and we learn from you. we teach you and you learn from us. Then and you are even our learners. good. muuqaalka la share gareey fadlan, muuqaalka share gareey. aad u mahadsantihiin. wixii su'aalahna dabcan group aa jiro oo ay ku wada jiraan inta badan guuleystayaashii sanadkan. wixii su'aal dheeraada waad soo weydiin kartaan.